بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي التقى، وبعد. إلهي سبحانه وتعالى waxaan ka baryaynaa kulankeena inuu khayr ka dhigo, wada jirkeenna iyo kala maqnaanshaheennaba diin iyo dunyaba u naxifiyo na badbaadiyo. kelmadaydu aad baan rajaynayaa inay u koobnaato, inkastoo hadalku taraaro oo duca la'aan tarmo, waayo dhib baan ka sheekaynayaa, dheef iyo nacfi kama sheekaynayo. dhibkuna dhagaha inuu ku bato tusaalayaal kooban baa kaga filan. kelmaddaydu waa baraha bulshada iyo bi'inta dhaqanka ay ku hayaan iyo diinta labadaba. baraha bulshadu waa wax markii taariikhaan la eego aan waqti taariikh dheer ma laha, waa wax dhowr iyo labaatan sano ah, haddii lasii fogeeyana aan sodomeeye ka badnayn. meelo dadku isugu yimaado ama laga soo qaadayo ood adigu ka dhigaysa, ka soo qaadaysa, iska rumaynayso inay dad sidaa iyo sidaa ah xaajada iyo xidhiirku idin dhex marayaan. magacyada meeshan ka muuqda ma runbaa ma been baa lama yaqaan, yaa raga yaa dumarana lama yaqaan. dumarku magaca rag bay ku samaystaan, ragguna magac dumar buu ku samaystaa. in badanna magacooda amaba sheegaan oo naanaysi iyo erayo bay la baxaan. siyaabo kale waad ku ogaan kartaa. marar badanna inaad xaqiijiso way adkaataa. yaa dhab ah markii xukun sharciya waxa la xaqiijiyo la yidhaahdo, cid kula xiriiraysa inaad garan weyda waa dhici kartaa. adugu laakiin inaad bulsho badan iyo dad badan iyo goob badan oo wax la isku dhaafsanayo, dad la xiriiraya ku jirto oo dad wax idin dhex marayaan ayaad ka dhigtaay oo ka soo qaadaa. runtii faa'iidooyin badan way leedahay oo waa seef laba af leh. wax sanoo wanaagsanna waa loo isticmaali karaa, dacwaa laga fidin karaa, mu'tamaraadkan iyo duruustana ka baxa, culumtii iyo aqoontiibaa diin iyo dunyaba lagu kala qaadan karaa, xogtii iyo khabarkiibaa la isku dhaafsan karaa. dadka dhibanayaasha ee meelo badan jooga baa si degdega xogtooda lagu tabin karaa, xaaladooda oo maqal iyo muuqaal sawiranna dadka lagu gaadhsiin karaa. wixii xumo ee socda ama dulmi ah baa tooshka lagu shidi karaayoo dadka si degdega lagu gaadhsiin karaa. waa un tusaalayow wax badan oo faa'iide ay leedahay, laakiin mawduucayga ma aha. waxaanse u tilmaamay inaydaan u qaadanin inaan leeyahay meeshu waa bale iyo dhib keliyahe. dhibna way leedahay, dheef iyo wanaagna way leedahay. seefta labada af leh, mindida qofna raashin buu ku karsadaa iyo hilib buu ku jarjartaa, midna dad buu ku dilaa. qorig iyo xabadduna ina naftiisi iyo dad beri uu ku difaacaa, ina tuugo iyo boob iyo dhacaya dulmi uu ku geystaa. hadba saameyntoodaa kala badan, say u fududdahay baa kala duwan, laakiin dhibna waa leedahay, dheefna waa leedahay. dheefteeda iyo wanaagga sida looga faa'iidaysan karo haddii wakhtigu ii soo haray insha allahu dib baan waxyaaba ka tilmaami doonaa, qaaraan horey usoo magac dhabay. dhibka baraha bulshada ka jira waa wax fudud. telefoonnada gacanta lagu hayana qof yar iyo qof weyn, in waalan iyo in miyir qabta intuba ay isticmaalayaan. xumaha laga fidin karo meel fogna durba si fudud ku gaadha. saas darteed baan dhowr tusaale ka soo qaadayaa. markii mawduuca la igu qoray intaanan aqoon dad baan u yeero, waxaan idhi war waxa ugu badane dhibka ee ka socda bal wax iga tusa. baraha bulshada ma ha noqdaan. waagii hore waxaan ku soo bilaabanay baaltoog la dhihi jirayo, muranka lagu murmi jiro cod iyo hadal ahaa. hadda laakiin waxaan filayaa waxyaabaha ugu badan waa facebooka
iyo Twitterka iyo Telegramka iyo kuwa la midka ah iyo TikToka kuwaasaa ka mid iyo kuwa kaloo fara badan markuu lacag noqdo dhibkiisu waa yaraadaa qofkii dhaqaalo u hora unbaa gaadha sida baraha dadka xirfadlaha ay ku kulmaan ay ku xidhiidhaan iyo kuwa la midka dhibka dadkeenna Soomaaliyeed ugu badan ee intii hadda xogta raadinayay aan la kulmay waxaa ka mid ah isduminta qoyska iyo isku dirka lamaanaha dhaqankaa xun wiil baa Nairobi ka tabiya aan la yaabanahay weli dadu isku diroo garaacayn u waaye dhaqan xumo dumista qoyska iyo isku dirka dadka halkana laga tabiya ma aqaan anugu mana arag laakiin wiil aad u akhlaaq xun way wiil fasaad iyo fidno aad u badan waday isaga iyo inta la midka ah way waxyaabaha la yaabay waxaa ka mid ahaa hebel telefoon iigu dir heblo telefoon iigu dir waan isqabnaa ama xidhiidh baan leenahay ii weydii inuu daacadii yahay iyo in kale soo saas kama jirto inaan tijaabiyaan raba inuu dad kale igu garab wado iyo dad kale inay igu garab wadiyo in kale baa ka mid ah wiilkaasi waa wiil aad u akhlaaq xun fasaad iyo fidno aad u badanna dadka iyo qoyska iyo lamaanaha Soomaaliyeed ku haya shaqo ka xun waa shaqadii shaydaanku qaban jiray waa inta shaydaan shaqo loo qabto tuu shaydaan ugu jeclaayay abaal gudo weeye waa shayaadiinta waaweyn buu ka mid yahay shaydaanku carshigiisa nabigu wuxuu sheegay sallallahu badda korkeedu yaalla dadku kala diraa qofkii lamaana iyo qoys isku soo diree soo kala cayliya buu soo dhaweeyaayo abaal gudsiya marka wakiilada shayaadiinta waaweyn kuwaasaa ka mid ah dhibka ay hayaani inta dad isku dhacaya in dad la isku dirayo inta khiyaano laga sheekeynayo inta namiimada waxaan rabaa inaan u sheego wiilka iyo kuwa la midka in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata namaamun diradiraa iyo namiimada qofka ka shaqeeya janno ma galo laa yadkhulu ljannata qattaatun diradiraaga iyo dadka namiimada ka shaqaystaay waa ahlu naar janno ma galaan wiilkaasi ha ogaado iyo kuwa la midka waxaanse la yaabay dadka safka ugu jira mid baa gabadh baa la yaaba waxay tiri 3 nin baan rabaa xiriir la leeyahay oo 3 raba inaan tijaabiyaan rabaa kii daacadiya oo iyaduba 3 hadda isku garab wado isaguna 3 inuu wada maxaa diiday iyadoo layman kala u shidane oo fiilooyin kala u daarane isaga fiilooyin kala inuu daarta maxaa diiday dadka marka la haasaawayo ama guur laga sheekaynayo gabadhana kun baa sahamisoo la hadasha kow baana guursada ninkuna intaasoo maraa ninka gabadhani ay guursan weyday kuwa kaluu raadinayaa laakiin wixii wuxuu noqday weligeedna way jiri jirtay wayna jiraysaa ruuxu inuu suuqa badeecadda markaad marayso kolba mid baad waraysataa qiimaheeda iyo sicirkeeda kii ku anfacaad qaadataa marka aad qaadato eed gadato eed reer noqotaan bay axkaamta sharciga iyo xuquuqda gaarkee la isku leeyahay dhalataa markan kale la isbaadaya biilka la kala qaadanayo ee boowi iyo baayada beenta la isu sheegay taasi mar ay culimadu ka jawaabeeno xoolaha lagu kala qaato qayb badan waa xaaraan laakiin waxaan rabaa inaad qodobkan namiimada ah waa ugu badaya dadkana dhinaca kale waxaan la yaabay dareenkii iyo dhiiggii ficilku waa ka dhammaaday intaa dad la isku dirayo wax ka falceliya maanan arag kuwaasoo kale waxay ahayd namiimada ka shaqeeya dad ka falceliya oo garaaco eedbiyo in la helo bay ahaayeen waayo dadka uu isku diraya way joogaan dad isku dir fitna ka shaqee fitnada qofku wuxuu joojiyaa markuu isagu ku gubtay dab ku taabto taasi waa tusaalaha koobaad ee aad bulshadeenna fasaadka baraha bulshada dadka uga wada ah haddaan magaciisa aqaana hebel baan dhihi lahaa laakiin haddii projector iyo jira sawirkiisaan soo dhigi lahaa
waana mudan yahay in beejajka la soo dhigo dadka fitnada ka shaqaynaya sawiradooda. waxaan la yaabaa dadku isagu fidnu ka shaqayn dadku isku diri war iska jira in la yiraahdana waxbaa la yeelay anaa wax la yidhi adu waxa dad wax yeelaysa ma ahayn inta fidna kama shaqaynin inta dad iskuma diraynin dadka mufsidiinta dadka in looga digo waa mudan tahay waa kow. qolyaha labaad in arkay waxaa ka mid ahaa dhaqan xumada dilay sheekadii iyo xaasaawihii guurka shukaansiga lagu magacaabay ee la yiraahdo hadal isku dhejinta ciyaal yar yar oo la soo fariisinayo rag iyo dumar shaashad la soo wada fariisinayo adiga maxaad u timid adiga maxaad rabtay hadal isku taagtaaga waxyaabihii la tusaan la yaabay bay ka mid ahayd gabdho xishoodku ka dhamaanayo iyo wiilal aan xishood lahayn oo laga sheekaynayo halkan lagu wada hadlayo waxaan dhiman in marar la iscaayo ay sariixa la iscaayo midda dadban waa ku badan tahay waxay dilaysaa dhaqankii iyo xishoodkii bay lumisay waxaa kaloo ay luminaysaa dadkii haasaawo iyo sheeko guuroo wanaagsan ka sheekayn lahaa waxaa da'yartii la barayaa indha adayg waxaa la barayaa hadalku xumayn waxaa la barayaa hadalka qofka cayda sarbeebta iyo dadban adi maxaad u timid maxaa u soo fadhiisatay maxaad rabtaa waxaasaad u eg tahay sidaasaa tahay waxyaabaha aadka uga socda ee dad dhaqan xumo wada ay wadaan wey iyaguna waa wakalaa u shaydaan qayb ka mida waa dadka waxaa ka shaqeeya wakiilada shaydaanka way waxaa ka mid oo la yaabay dhaqan xumada iyo qaawanaanta weliba gabdhaha iyo dumarka aan waxaan garan waayo waxaa laga siiyo gabdhuhu cawradooda inay bandhigaan calooshooda bannaan duubaan guryaha ay ku duubaan ma aqaana ma lacago badan baa laga helaa ma wada muslim baa dadkan mise kuwaan muslimin oo gaalaha ku jira dadkani ma dad lehba mise kuwa wax dhalay aan la aqoonin oo wadooyinka laga helay u badan yihiin dad iyo qoys damiir iyo diin loo xishoonaya oo ubadkoodii iyo gabdhahoodii kaliya u xeer dhiganaya oo cid san oo wanaagsan oo la xidhiidha inay waayaan ka baqaya maba jiraan miya xishoo darrada xidig lagu noqonayo caytan qaawanaan xidig lagu noqonayo dee markii waa dhow waa fiirin waayeen badan oo ka mid a qaawanaanta in allaalay intii uun meelaha kalaabyada ah lagu samayn jiray inta kalaabyada lagu samayn jiray ee la isqaawin jiray ee la isjajabin jiray ee waxyaabaha xunxe magacyada xunxun leh la samayn jiray baa mid walba meel bay furanayaa waa buu tiktok ka furanayaa waxaan la yaabay maalmo dhaweyta waxaan maqlayay wixii qurunka ahaa ee duubtay oo buuxay dhimatay heblaha dhimatay waxeedii oo dhan aan dacwoonno meesheedii hala xidho maxaa loo xidhi tan iyo aakhare intay jirta markhaati bay ku tahay sawiradii qaawanidee duubtay intay ifka wareegayaan dembi baa kuu socda xumihii aad duubtay intay socdeen aakhare waxbaa kuu socda adu dhimo oo tag laakiin qoyska gabdhahaasi si gaara ay ka dhasheen gabdhahaasi qoyska ay ka dhasheen gabdhay leeyihiin gabdhaha la dhashay dhaqan xumada qofka iyaga ka mid ee samaynaya sawma oga in gabdhahooda ay saamayn ku yeelan guurka iyo xididnimada inuusan ka soo doonanaynin qof guri dhaqan iyo guur wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan raba inuusan soo aadaynin wixii la dayrin jiray baa duqay difaacaysa arkaysaa labaa isku dhici dad wada cirala oo waayeelah iyo dad hebel iyo akhyaar oo taqiinay gabadha maxaa laga rabaa war gabadha maa qabsatay haddaad ka naxayso hadday ku diirinayso markay dhaqan xumadan leedahay markay qaawanaanta duubayso markay waxa qurunka ka sheekaynayso markay jirkeedoo dhan bannaanka dhigayso soo ma ogid sharaftaada inay meel kaga dhacayso soo ma ogid inay qoyska dhan magac dilayso intiina waa idin weydiinayaa rag iyo dumarba ninka raggii hadduu gabadh guursan rabo ama gabadhu walaalkeed uu guursan rabo qoys dhaqan xun inuu ka doonto gabadh
dadkiisu inay ogolaadaan masaxba reerka gabadhaa dhaqan xumada ku garab taagan maxay astaan u tahay waa reer dhaqan xun gabdhahooduna dhaqan xun bay ku barbaarayaan miyaydan u turaynin qoysaskiina aabaada iyo ummahaadka hooyooyinka iyo aabbaha walaalaha rag iyo dumar leh xigtada iyo qaraabadu waxaan qoyskiinuu ku soo noqon doonaa waxaa lagu aqoonsan doonaa hadda kadib war qoyskan gawaa iyo qoladan tii hebla ahay reerkoodii waa hebla waayo baraha iyaday da'yartiya dadku yaqaanaan markay iswaraysi timaadda waxaad maalin samaysay ama walaalkaa sameeyey baa lagugu xusi waxaa la yidhaahdaa nebi yuusuf calayhi salaam markay walaalihii yimaadeen ee suwaaca almaliki la waayey ee kadib meeshii walaalkii laga soo bixiyey walaalihii kale la dhashay maxay dhaheen baashu markoo dambe bahbah bay tagtay qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu hadduu xaday wiilkani walaalkiibaa waa hore isagoo yar waxaday hadalka maxay ka dhigan tahay bahdanba tuugada faraqaadqaadka dhaqan bay u leeyihiin yaa ku caayaya walaalahood oo la baha intee ka soo wareegtay dad waayeeloo ciroobay maray caruur ahaayeen wax dhacay wey nin arday wada ahaynba waxuu iga sheekeeyey jaamacadda sacuudiga waan dhigan jiray baan tuuladooda tagnay tuuladaa qiso ka dhacday buu igu yidhi iyo tuulooyinka ku xeeran miday ahaydba dhaqanka baadiyaha soomaaliday la dhaqan tahayo baashan neefta ama dhuusada ceeb weeye nin dhalinyaro ay ka fakatay tuulo yar bay ahaydee reerihii waa joogi waayey dee hadduu reeshabee lala joogi lahaana taalaaba meesha laga dhisi lahaa dhagax iyo geed baa la dhisi lahaa uu cararay meel kaleu tegay oo waddan kaleu tegay oo dad kaleu la noolaaday maruu waayeeloo 80 jir meelaha gaadhay wuxuu yidhi war qabri baad agtii joogtaaye bal dadkii qaraabadahaa soo booqo meeshii buu yimid dee dad 40 jiro oon weligood arag oo hortood iyagoon dhalan uu tegey iyo kuwo 50 jiro oo 10 jiro ah markuu tegayey baa la isweydiiyey war ninkan odayga waayo ninkan waayo waa qoyskan oo kuwaan adeeru yahay xaggee jirayo waxaa la yidhi waabay ka fakatoo baxsaday 40 sano ka hor bay waa ka fakatay neefo u cararay ninka 40ka sano loo xasuusnaa gabadha reerkiina ah waxaa u tagseegi oo u guurseegi gabdho badan oo qoyska iyo reerka ah qof sharaf iyo qiimo raba rag iyo dumar toona qoyskaas marka laydin waraysto waa hebla reerkoodii waa qoyskii heblaad hebla maxaa lagu yaqiinay qaawanaan dhaqan xumo edab darro akhlaaq xumo diin xumaa lagu yaqiinay gabdhihiinna intaa waxaad u qabataan kuwa kale mustaqbalkiinna iyo sharafta qoyskiinna ilaaliya waxyaabahan la yaabay waxaa ka mid ah fitanka ay nagu haysaa fidnada dagaalka sokeeye isku dirka dadka imsaa qabaa'ilka la ysku dira maamulaa la ysku dira qoysas baa la ysku dira qabaal baa la ysku diraa tallaayay jabayay warka kacaay war hebel baa marayay warubka urursaday waqaaraan soo bixiyay mararka qaarkoodna fidnadii abuurkeedii iyo qaawanaantii baa la ysku daraa iyo ceebtii soo haween qaawan oo fariimo dagaal taagan oo qoryaan qaadanaynaale mid arkayn soo mid arag marar badan markay reeruhu qabaa'ilka xuduudaha iyo wax isku dhacdhacaan fidnada isku dirka dadka dagaalka hurintiisa dabka shididiisa kii naar afuufahaayoo dhan kuwaasoo kala wey waagii hore reeruhu dad bay lahaan jireen gaara oo hebel iyo heble iyo la yaqaano oo fidno ka shaqeeya maalin dhaweytaa waxaa laygu lahaa 2 qiso qiso hore nin baa wuxuu ii sheego wuxuu yidhi reer baa waxaa jiray nin fidna ka shaqaysa 2 qoys oo ilmaadeeraa ceel isku laayay waa la isburbureeyey oo qolaa laga xoog roonaaday kadib odayaashii qolada kalea waxay yidhi war dagaalku isinugu fogaanine aan dadkii ka daba tagno nabad doonno sabeen xidhno xaal aan geyno hebelna inaga ilaaliyuusina raacin isagiina markay baxeen buu dhinac ka baxay korkuu ka fiirsanaya ragga socda marka la soo dhoweeyey guri loo goglay galayaan buu gadaal ka gaadhay waa nin oday waayeeloo garhkiisi iyo madaxiisu cadya nimankii waa lagu sabeen xiray raalli ahaada iyagana waa aqbaleen waa soo dhoweeyeen markii kicitaankii la joogu gacanta taagay inuu hadluu rabaa
markaasaa waxay dhaheen qoladiisii ma hadlaysidee shabdhe war ninka oday weeye hadlaan qoladii loo yimid baa cadaadisay waxay dhaheen ninkaan noo qaban maysaan may ha hadlee daaye wuxuu yidhi tolkay waa mahadsan yihiin xaal iyo xaajada ay garteen reer kalaanu nimidna waa mahadsan yihiin walaaltinimadii iyo xaajada ay aqbaleen shalay wixii dhacay ama wixii dhacay raalli maanaan ka ahayn wixii meesha ka dhacay ilaahay baqihiinnii buu inagu badbaadiyey buuri ilaahay baqihiinnii buu inagu badbaadiyey haddaydaan cararin waa la isku jabijabi lahaa ninkaasi masamuu ka shaqeeyey mise baluu shiday wuxuu yidhi baqihiinnii baan ku haddaydaan shalay cararin nag baa la ysku dhihi lahaa balaayo ka weyn baa dhici lahayd haddii nimanka dee xanaaqeenna waxaa la yidhi idinkaa yidhi ha hadlo naga daayaan idinka weyn ninka waa ku naqaan nalama soconin gadaal buu naga soo reelay habeen dhaweytana waxaa laygu lahaa halkan Nairobi oon joogno qof aan aqaan oo dumara waxay tiri baa leeyahay aniga reer inaan kala geeyo wada joogo nabada nusaac igu qaadan mayso inaan fitna ka abuuron kala diro oo mar kala geeyo nusaac igu qaadan mayso kaasoo barabalo ku bulsho ku heshay maxaad u malay labadaasoo bara bulsho ku helay wax ka soo wada afuufaya buux oo fitno iyo dagaal iyo isku dir bahashii Soomaalida qabyaaladii 9-meeyadii iyo 8-meeyadii bay hadda horinayaan qolo walba waxay leeyihiin 4 afmaal ama 3 afmaal oo fitno iyo isku dir iyo qabiil ay iyo dabshidid iyo dhig in la daadiyo waxaan ahayn aan ka shaqeyn qolo walba waxaan la yaabay qaar kamida oo intay deegaanada qaar tageen intay tageen sida boqor iyo madax loo soo dhaweynayo waxaad fiirisaa bulshada kii fataanka ahaa isku dirka xirfadiisu ahayd balada ka shaqayn jiray boqor ahaan u soo dhaweynaysa maxaad ka filaysaa waa dhiirigelin fitnada iyo fataaniinta iyo dadka isku dila ee dhiig inuu daatay iyo qabiilka iyo xumaha ka shaqeeya markii xaflada iyo soo dhaweyn iyo qaabilad loo sameeyo maxaa loo diray da'yartii iyo dadkii kale shaqo fiican bay hayeen shaqo fiican baad haysaan dadka nag iskaga sii dhiga way waxyaabaha fitanka baraha bulshadu inuu hayaan bay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah alkasbu alxaraam xoola xaaraana dadka waxaa qaylaya markaan waraystay waxaa la yidhi beesa iyo lacag baa la daba ordayaa oo maxay tahay dadkaa ku daawaday iyo xayeysiiska meeshaada dadkaa badan laga sameeyey baa xooliya lacag laga samaynayaae haddaan meesha lacag laga daydayayn dadku enerjiga iyo awooddaaba uma hayeen kasabka laga sameeyey qaawanaan iyo xumaan la fidiyey kasabka laga sameeyey iyo xayeysiiska dadka la isku diray iyo namiimada duminta qoyska kasabka fitnada iyo dhiig iyo qabaa'ilka la isku dayraya laga sameeyey xayeysiiska kaniisadaha iyo khamriga iyo qamaarka iyo ribada laga sameeyey kasab xool iyo xaaraan oo la cunayo way inay meelaha damay baarar furtaan baar khamri oo furataaba ka dhib yar inaad baar khamri afurataa ka dambi yar qoys la duminaya iyo namiimo iyo muslim dhiigood la isku dirayo inaad xoolo ka samayso qamaarka ka fudud ribada ka fudud khamriga iyo daroogada ka fudud dhiig muslim buu lacag ka samaynaya qoys muslim oo la duminayo la isku dirayo lacag ka samaynaya jirkooda oo qaawan bay shilin ka raadinaysaa oo meesha dhilooyinka hadday furato maxaa u diidaya ma iska furato waxay gadaysaa soo jirkeedii oo qaawan ma keedii oo qaawan hadday gadayso may xubnaheeda tarankana iibsato waa isku wada mid waxaan oo dhan xoolahan iyo maksabkan xaaraamta ah dad baa shaxaad u daba jooga qoysasna biil baa looga diraa dadkii maxay noqonayaan ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام عيالك لغو بيلينا maxay noqon
وغذي بالحرام فأنا يستجاب له كسب كان حرامته iyo xoolahan xaaraanta ee laga shaqaynayo iyadana waa fitanka iyo dhibka badan ee saamaynta dheer leh oo inugu hayo ilmaha xaaraanta lagu koriyo inta badan wuu xumaadaa inta badan waa xumaadaa kasabka khabiiska ahna tabci iyo damiir iyo caqiida xun buu abuuraa waxaa kaloo ka mid a dhibka baraha bulshada ka jira gaalaysiin baa ka jirta dadka la gaalaysiiyo meelaha ama lagu doodo tiktoka waxaa ka socdoo la ii soo dirayay sawiro dad la gaalaysiinayo dhowr beri ka hor baan akhrinayay Somali Christian Census tirakoobka Soomaalida Kiristaanka ah waxaan u malaynayaa usbuuc kama soo wareegin waqtiga la ii soo diray census ama tirakoob lagu sameeyey Soomaalida gaalada kuwa diin la'aanta way sugnahay oo hadda sidii waa loo caafimaad qabay looma caafimaad qabo si waa muslim loo wada ahaana looma wada aha meelaha dadka laga ugaarsadee diin xumada loogu yeedhana barahan bulshada ka mida Facebook yay leeyihiin Twitter bay leeyihiin Telegram yay leeyihiin TikTok yay leeyihiin shubuhaadkii baa lagu sii daayaa kuwa shiica loogu yeero kuwa takfiir iyo khawaarij loogu yeero kuwa ridda iyo gaalnimo ama kristan loogu yeero kuwa alladiid iyo ilxaad iyo diin la'aanba wax ilaah ma jira loogu yeero markaad eegto sida loo isticmaalayo iyo marar badan doodaha ka dhacaya iyo shubuhaadka la fidinayo barihii bulshada diin xumadii iyo alladiidkii iyo kristankii dadka loogu yeedhayay iyadana si xawli ay uga socdaan dadkana waa lagu soo dumaa meelaha qaarkood baa laygu lahaa waxbaa la siiyaa qofkii member ka noqda ee gala innagana waxaan noqonnay hunguri nin baa nin Soomaaliya yiri baa la yiri war may taqaana markaasuu yidhi haa weligood mayna sarag xaggeed ugu baratay war weligaa waan ku aqiinay xaggeed ugu baratay yaan ahay buu ina halkaasaa tahay barasho kale u baahdido hunguri baa tahay hunguri Soomaalida saa darteed waxay dhaheen laba meel lagu hayo mid waa hunguri Soomaali laba arrimood oo meel laga hadlay dad aragto labada mid waa hunguri hunguri xumadii waxay inala gashay in diintii la bedelo waxaase igu yaab badnaa baraha bulshada ee loogu yeedhayo raggu dumar inay noqdaan oo jinsiga la bedelana kuwaa la ii keenoo la ii tusay wiil baan ahaan jiray gabadh baan ahay maxamed baa la ii dhihi jiray maariya la ii dhahaa hebel baa la ii dhihi jiray jacqueline baa la ii dhahaa hebelaa la ii dhihi jiray heblaan la baxay iyo iyagii oo hadlayaba qayb baa la ii keeno waxaa ka jira la yidhi markaan war waxaa shaa la bannaan lama soo istaagayaan yaa la yidhi kaa sheekh waa kunka daawo xaggee jirta adduunka waa hore bannaankaad joogtahay hebel hebel oo ina hebela oo ina hebela oo la yaqaano oo soo taagan oo leh aniga axmed baa lay dhihi jiray haddana maariyaa lay dhahaa baa soo taagan waad noqon kartaa way fiican tahay waan ka raystay baa ka socoto taana waxay ka mid tahay waxyaabaha dhaqan xumada ah ee akhlaaqda iyo diinta dilaya ee barihii bulshada ka socda ayay ka mid tahay inahaasi waa tusaalayaw kooban u baahan wax ka qabad waxaan u baahannahay da'yarteennu qofku intuu yar yahay intuu geed ka boodo yuu tala ka boodaa telefoonka mobilkii iyo smartphoneskii iyo iPadkii baa gacanta lagu wada wataa iPadku waa waaweynaaday haddee telefoonkii yaraabuu qof walba luuq la taagan yahay afarta wada socota mid la hadlaya male mid walba kanuu ku mashquulsan yahay waxay noqotay halkaasaa wax walba u soo maraya guruub buu ku jiraa yay yihiin ma yaqaano
ma wada xaliima ma wada xasanba ma isku dhex jiraan lama yaqaan yaa magacan watoon ahayn lama yaqaan da'yarteennu waxaan u baahannahay meelaha waxbarashada muasasaadka tacliinta iyo dacwada masaajidda iyo malcamadaha guryaha iyo xaafaduhu baladan iyo dabkan fitankan hulaaqaya inay waalidka iyo dadka waxgaradkii waaye iyo wacyi u yeeshaan inay ka waaniyaan ubadka iyo ilmahana ay ku baraarujiyaan khatarta iyo dhibka ay leedahay hadda drugs baa lagu kala gadaa baan arkayay meelo shiishadaha ku beeciyo ku iibiya drugska baraha bulshada isugu dirana shalay miyahayd wixii la ii keenaya la ii tusaya lahaa tanna waa jirtaa drugs baa lagu gadaa halkaasaa loogu soo diraa halkaa ka qaado halkaa ugu imo waxaa lagu xayeysiinayaan beejash dhan tan magacaasaa la dhahaa taa nambarkaasay leedahay taa intaasay samaysaa taa intaasaa laga helaa taa bricekeedu waa intaa taa qiimadeedu gruub dhan oo fara badan baa memberska ah muxuu ugu biiray mataqaani war meesha waa meel dragise muxuu ugu biiray ilmahaaga la soco inkastoo dragisku sideeda kale qadiyad kale ay tahay oo hadda saacada xashiishada ay magaalada yaallaan saacada qurux badan oo carruurta loo soo gadayo laakiin xashiishada laga qaata ay soo galeenoo waalidku ilmahan suuqa saacadahan madmadowga uga soo gadaysaan bilmunaasaba inaad baraarto lakiin taa waa qadiyad kale dragiska iyo sida looga hortaga iyo sida loo ilaaliyo laakiin waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo wakhtigii duhurka ayna hayee waalidka iyo inta waxgaradka mas-uuliyiinta ah waxyaaba badan baa dowladda hadday jirto laga codsan lahaa in laga xira wadamada iyo hawada wadamo badanna laga xiray laakiin meeshaan aan joognaayey wax walba waa furan yahayoo albaabadaa u ballaqan ilmihiinna iyo ubadkiinna ilaashada idinkuna dhallinyaroy gaar ahaan gabdhow dhaqan xumadan sii fidaysa yaan mawjadi iyo baddu idinla tegin aakharadiinna iyo adduunkiinnaba ilaashada oo waxaa la y tusayey intii meelo la geeyey cabaadayo ha i duubina leh waa la soo duubo haddana waagii hore qarxiska mirooyinka la qarxiyaha la dhihi jiray hadda waxaa la yidhi waa la qarxiya haddii lagu yidhaahdo taa keliya ma ahee qof baa ceebtiisii bannaanka lasoo dhigayo wax si qarsoodi a looga duubay iyo wax cod qarsoodi oo laga hayay iyo ku ceeboo laga hayay iyo bannaanka lasoo dhigi innaguna horaa waxay u dhihi jireen soomaalidu beelaan qofka qabiilaan nin u waalan qosol kama dhargin qofka waalan bay dhegaystaan oo ay ka maadaystaan baraha bulshadana inta waalan baynu dhegaysanaa inta wax magalka ahna warbay waxbaynu ka qaadanaa gunaanadkii sadaqa almustafa calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi aakhiru zamaanka waxaa iman doonta waqti yukadabu fiihina saadiq wayusadaqu fiihina alkaadib been looga la yaqaanaa warkiisa la qaataa nin wal markaad tiraahdaa warkan aad dhegaysanaysa oo balaayo oo youtuberle oo been badan buu ku dhihi yuuna dhegaystaa markuu soo kaco bilaabo isaguu ka bilaabaa yusadaqu fiihina alkaadib waa beentii baa run noqotay beenaalihiina halyey buu noqday ciyaal suuqiina xidig buu noqday xumaantiina ammaan baa lagaga dhigay baraha bulshada ilahi subxana wa tacala inaga iyo ubadkeennaba allah inaga xifdiyo ummadda muslimiintana allah ka xifdiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu